dhegaystayaal meel aad joogtaanba kusoo dhawaada barnaamij aanu idiga soo duubnay muwaadiniinta jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Ingiriiska gaar ahaan jaaliyadda kasoo jeeda gobolka Awdal maanta halkan waxaa noogu martiya Rashiid Cabdilaahi Qaalib oo degan magaalada Leicester Rashiid ma la maqlaysaa waan ku maqlaa Axmed kusoo dhawow bal aragtida aad ka qabto dhacdooyinkan ka socda gobolka Awdal Axmed marka hore waan ku salaamayaa adiga iyo website-ka Awdal Press waa mahadsantahay Rashiid sida aad ka warqabto habeenkii xalay ahaa waxaa weerar lagu soo qaaday gudoomiyaha gobolka Awdal gurigiisa sidaad u aragtaa dhacdada noocaas Axmed horta mataqaanaa waan ka xumahay in muwaadiniin gurigiisa lagu weeraro waayo mataqaanaa Somaliland nabad bay kusoo caanamaashay waana nin mataqaanaa wadaniga waa nin wax badan qabtay wadanka gobolkana u qabtay wax badan arrintaasi waa arrin mataqaanaa aan aad uga soo horjeedno haddaan nahay jaaliyadda reer marka miyaad ka xun tahay mise waad cambaaraynaysaa falka noocaas u dhacay may waan cambaaraynaa weliba si aadaan cambaaraynaa waayo wuxuu shakhsiyan gurigiisa lagu weeraro adduunka oo dhan wadan inagu maayna waa qalab wey dhacdadan ka dhacday magaalada Boorama oo aan ahayn tii koowaad oo ay ka horeysay kuwayo hore oo lagu weeraray nin ganacsada ah yaad u malaynaysaa inay ka dambeeyaan wallahi horta ilaa hadda mataqaanaa weli cid sheegatay maanu maqanin laakiin waxaan filayaa in kulley mataqaanaa shaqaaqooyinka ka jira wadanka oo dhan maaha wax Awdal u gaara waan maqashay Axmedow mataqaanaa berbera shaqaaqooyinka ka socda ilaa maalmahan ilaa muddada waan caalamka wixii ka dhacay waan ogeyn burcay iyo intiisa kala wada tahay kulley waa cadaalad darro ay tirsanayaan dadka reer Somaliland un baan u malaynaya inay taanka mataqaanaa xagga daaran tahay baan u malaynaya Rashiid cadaalad darradan aad ku sheegayso Somaliland ee aad leedahay sabab bay u tahay shaqaaqooyinka ka socda gobolada Somaliland maxaa ugu weyn baad u malaynaysaa ee aad tilmaami lahayd wallahi Axmed waxa weeye mataqaanaa inagana inoo muuqda ummadda oo dhan iyo adduunka oo dhan oo muuqda weeyaan hadda waad ogtahay madaxweynihii Somaliland iyo waqti hogaaminaya ay waxay yimaadeen muxuu ahaa Ireland waxay u muuqataa dee mataqaanaa waqti qabiil u socda marka wax mataqaanaa loo siman yahay oo mataqaanaa wadankii loo siman yahay ma arko aniga ka jaaliyad reer Awdal ahaan ama Somaliland ahaan sideed u malaynaysaa in looga arko dalka Ingiriiska dawladda hadda jirta ee Somaliland iyo ficiladan had iyo jeer aynu ka akhrisano warbaahinta wallahi Axmed kulley dad mataqaanaa wadankoodii mataqaanaa ka maqan baynu nahay mataqaanaa meesha kaliya loo eeganayna waa halkaas ma jeclid waxyaabaha hadda mataqaanaa ka socda waxaynu ku farxaynaa maaha oo waynu arkaynaa waxa jira waayo wixii yaraaye saska yaraaye meesha jiray wada joogo looma sinna shaqaalihii looma sinna shaqaalihii kale looma sinna markaas kulley rabshado iyo tan iyo tuka xuniba mataqaanaa waxaan filayna weeyaan reer Somaliland oo dhan way ka siman yihiin mataqaanaa walaaca ay ka qabaan midkood
kaasi wuxuu ahaa Rashiid Cabdilaahi Qaalib oo aragtidiisa aynu ku wareysanay ku wajahan shaqaaqooyinkan ka taagan gobolka Awdal oo ay ugu dambeysay geerida ku dhacday inanka daada yar lagu dilay garoonka hortiisa kuwayo aragtiyo kale oo kala gedisan oo shacabka degan dalka Ingiriiska ee ka soo jeeda jaaliyadda Somaliland na waanu dib maqashin doonaa haddii la yiraahdo waqti aan dheerayn